Walaweyn yamayba geedka la qabaday munaasabad la gabagabeeyay tababar dareeri ku dhawaad 5 maalmood yamayba lanqabaday ururka haweenka degmooyinka Walaweyn iyo Afgooy iyo hano ku shal dareere tuulooyinka hoos kooya lamadaas degma biyowka tababarka mayba isku kaaladay xafiiska arrimaha haweenka ee shabeellada hoose iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maybana mas'uuliyiinta tababarkan ku hadal iyo sheegana intii walbadan iyo bulshada tababarkan qaadatay iyo kordhiyay doonanga maybana bilaanta tababarka laanhir iyo sheegan intii diirsiyo doonaan walaagiyo habaradeen bulshada kale in gabagabeeyay ito seminaarkii ama tababarkii ahaa ka saabsanayay talo iyo tawfiiq ma aad in faraxsanaa in degmada Walaweyn marti geliido dadku socdo degmooyinka Walaweyn iyo Afgooye iyo tuulooyin hoos kooyayaan sida doonka تحصيله iyo warmaxan aad in faraxsana in tababarkaas si nabadgeliyo oo horumar leh oo aad runtii macnaa maamulka degmada Walaweyn aan afsheeka hadalaa iyo guud ahaan degmada Walaweynba ma ay arago hayna tababarkii runtii aad in ka heer sareeyay degmada Walaweyn la qabado gaar ahaan ururka haweenka la qabado kii in ka heer sareeyna iyo waxaan rabaa haweenku inay kala shaqeeyaan maamulada degmooyinka haday horumar ku tahay iyo haday waxbarashada tahay iyo haday tahay maaragtay agaasinka arimaha haweenka iyo amniga iyo maaragtay wax kasta oo degmadaasi ka jiro oo barnaamijyo ah kulli hore sa u balan qaadeen waxaan rajaynayaa in balanqaadkaasi fulin doontaan haduu Ilaahay raali ka noqdo anagana waxaan fulin doonaa in haweenka loo qabto barnaamijyo lagu horumarinayo aqoontooda iyo maaragtay iyo wacyigooda lagu horumarinayo in uu qabano haduu Ilaahay raali ka noqdo waxaan rabaa inaan horta idinkan idinku mahadceliyo sidaad ugu dhabar adeegteen sidaad idinku u faraxsantihiin 5 maalin aad waxaad barateen inaad maxaa la yiraahdaa aad waqtigiina aad ku lumiseen meeshan run ahaantii faa'iido badan aad kala kulanteen waxaan rajaynayaa waxaad barateen inaad gaarsiisaan dadkii meelihii aad ka imaateen qof walba xaafada uu degan ka bilaabo iyo gurigiisa iyo kan ku xigo in dadku wax baro inaad wacyi gelisaan marka waan isla hadli doonaa ani idinka waana mahadsantihiin ka dambeyntii mayba tababarka hiray xilmaan Faaduma Cabdiraxmaan Gulwade oo ku tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya taasi oo qayb ku haytay madaxdii munaasabadna ku qayb galay hadda gabdhaha u soo noqdo gabdhaha oo habeenka oo gudoomiyaha degmada Afgooye gudoomiyaha degmada Walaweyn maadaama gudoomiye aad tihiin waxa la idin rabaa habeenkii inaad isku xirtaan isku xirka habeenka idinka la idin rabaa gudoomiyaasha inay ka shaqeeyaan midnimada habeenka idinka la idin rabaa inaad ka shaqeysiin qabiilka inaad gubtiin aad isgarbaysatiin gudoomiyaasha laga rabaa dhaxda inay u xirtaan arintaas daraadna waa idin sheegay haddana waa idin u celinaa yaan qabiil idin duufsanin gabar Soomaaliyeed qabiil wuxuu noo tarmale laf dhabarkii bulshada nahay amniga aan ka shaqeeyno wadajirka aan ka shaqeeyno horumarka aan ka shaqeeyno gacmaha isqabsano marka waxaan leeyahay seminaarkan kulay inaad wax badan aad ka faa'iideen waa aragnay daraadaan ogaay hadayna waa sheegay maalintii koow la furay iyo wixii maanta ka soo baxay maskaxdiina markii la shiilay waxa ka soo baxay hadal cajiib leh ma sha Allah lagu farxo seminaarkan waa noo xiran yahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ka qaybgalayaasha tababarka iyo hadalyameey iyo sheegan intii ka faraxsan yihiin intii tababar nooc ah tawlasiya Faisal Adour hada telefishinka dowlad gobolka Koonfur Galbeed Baydhabo